dhammaan maamulka dugsiga sare ee degmada Galdogob sharaf ayay saaka ii tahay inaan idinku soo booqdo waqti badan idinkama qaadanayo waxaan aad ugu faraxsanahay wajidiinaan ka muuqato rajada iyo quruxda iyo riyada aragtiin mustaqbal fiican oo wanaagsan inaad heshiin waxaan nasiib u hesheen dalka inuu mar dhow fursado badan ay ka furmi doonaan dawladda si fiican u saldhigatay hadday noqon lahayd dawlad goboleedyada ama dawladda federaalka anigu waagaan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan xoog saari jiray sidii dhalinyaradan Soomaaliyeed mustaqbal loogu abuuri lahaa waliba shaqo abuur baan xoog saari jiray waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala marka doorashada laga gudbo in dalku ay maalgashi fara badan ay imaan doonto halkaasna shaqo abuur iyo rajo fiican ka abuurmi doonto waxaan kaloo rabaa inaan u hambaliyo iskuulka maamulkiisa oo aad ku wanaagsan in 2019 iyo 2020 Cabdulla Ali Ugaas markuu ka ahaa haddana Cabdulla Sheekh waxaan ogahay Cabdulla Cusmaan Dheere nin aad u dadaal badan inuu yahay marka waxaan rabaa idinkeedu ku xiran tahay in mar walba aan ka daawano shaashadaha iyo adduunyada hadba ay muuqda ardayga sanadkan ay muuqda oo Galdogob secondary school macnaha insha Allah dugsiga sare ee degmada Galdogob in ardayda ugu sarreeyay geli doonta hadii ilaahay idmo dhinaca Cabdulla dhinaca Soomaaliya marka iskuulkan inaan mataqaanaa wixii baahiyiisa gaarka iyo si lagu horumarin lahaa waxa ummadi ku kala horumartay waqtiga kaba dhuminaay waa aqoonta iyo caafimaadka waa waxa kaliya bulshada ku kala horumarto marka saaka waxaan rabaa inaan xoogaa yar waxa idahaya mataqaanaa caajisa aniga waagi waxaan gudoomiyaha wuxuu sheegay inuu halkaan iskuulka ka bilaabay marka waa dadkii warshadii ay soo saartay iskuulka oo maanta degmada ka yahay marka bari waxa ay muuqda madaxweynihii dalka ay muuqda bari waxa ay muuqda dhalinyarada halkaan fadhiisa gabdhaha wiilasha isugu jira dadkii waddanka u tarin lahaa hadday ganacsi aan lahayd hadday dhinac kasta aan lahayd bulshada idinka ayaa noqonaysa hadii lahayd waagi markii aan dugsiga aan markaan aadi jiray dugsiga hoose dhexe oo Soomaaliya marka aad ku yeelaa muddo dheer dagaalka sokeeye ka hor ayaa waxa jiri jirtay waxa rabaa saaka inaan aan xoogaa yar aan heesta ila qaadaan idinku hamra jiibin arday baan ahayo ubaxii waddankan ahayo waxaanu ordayaa dugsiyada u aadaa inaan aqoon karsado dalkayga anface dadaalkii la yimide allahayo ii gargaar aamin ilaahayo ii gargaar ilaahay waxaan idinka rajaynayaa inuu ilaahay idin gargaaro aqoontaas waddanka ayaa idinku xisaabtami doona mustaqbal wanaagsan iftiin wanaagsan rajo wanaagsan waxa maanta aad nolosha ka bilowdaan ayaa mustaqbalkiina noqonaya deegaankan waxaan ogahay in waxyaabo muqaadaraad fara badan ku soo kordhay ilaahay idinka badbaadiyo waxaan idinka rajaynayaa waxaas inaad ka fogaatiin haddaa rabtiin inaad horumartiin hooyada halkaan maanta ku rafaadsan ama aabbaha idin soo diraya oo xaalad adag iskuulka idinku soo diray laga yaabo inaan niyo jibisaan mar raba anigu waxaan rabaa waddankan ilaahay idinka ayaa u maqan idinka mustaqbalkiya waxaan idinka baahan waxa weeye inaad waxyaabaha muqaadaraadka waxyaabaha xun dadka saaxiibada xun ka fogaataan dadka wanaagsan la saaxiibtaan ehlo diin noqotaan ilaahay aamintaan marka koow ilaahay aamintid naftaada ku kalsoon tahay guusha waa gaarsa dil arday baan ahayo ubaxii waddankan ahayo arday baan ahayo ubaxii waddankan waxaanu ordayaa dugsiyada waada inaan aqoon karsado dalkayga anface dadaalkii la yimide waa ka dadaalku kale allahayo ii gargaar aamin ilaahu idin gargaar ilaahu idin guulee insha Allah taala hada ma satiin